madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdi oo hilfaha isku qaaday xilli Cabdi Xaashi ku hanjabay in uusan la shaqeyn doonin dowladda dhexe ee Soomaaliya ee uu hogaaminayo Xasan Sheekh. Haddaba waxaynu eegi doonaa ceeb iyo fadeexad weyn oo ka dhalatay kulan lagu kala kacay xilli Cabdi Xaashi laga diiday ninka noqonaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka. Wararkii ugu dambeeyay wadada meesha ka dhacday iyo sidoo kale waxa laga diiwaan geliyay kulankaas fashilka iyo natiijo la'aanta ku dhamaaday ee u dhaxeeyay Xasan Sheekh iyo Cabdi Xaashi ayaanu idin soo gudbin doonaa insha Allah. Qodobada kale waxaa ka mid noqon doona ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ole xoog leh xilligan markaasi ka wada qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Puntland. Haddaba waxaanu idin soo gudbin doonaa Cumar Cabdirashiid oo wada ololihii ugu dambeeyay ee xilka looga tuurayo hogaamiyaha Puntland Siciid Dani. Waxaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa kulamo kale oo ka soconaya magaalada Nairobi kuwaasi oo sidoo kale qayb uu ka yahay Cumar Cabdirashiid xilli lacago fara badan oo gaaraya malaayiin dollar uu Cumar Cabdirashiid ku qarash gareynayo ama uu ku bixinayo xildhibaanada Puntland si ay xilka uga tuuraan Mr Dani. Waxaanu idin soo gudbin doonaa fadeexadda xilligan haraysay maamulkaas uu hogaaminayo Siciid Dani iyo Siciid Dani uu xaalku ku xun yahay kadib markii uu soo food saaray culaysyo markaasi aad u xoog badan. Iyo waxaan idin soo gudbin doonaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre iyo madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xilligan ole u wada markaasi golaha wasiirada xilli wasiirada ugu badan ay gacanta ku hayaan. Haddaba ma dhaba in uu jiro heshiis ay wada galeen Xamse Farmaajo iyo Kheyre. Warar xoogan oo sheegaya in uu Xamse dhabarka ka toogtay Xasan Sheekh ayaanu markaasi idin soo gudbin doonaa haddii baweyne uu qadaro. Ibikana aynu ku bilowdo. madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka mudane Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa waxa la sheegay inay yeesheen kulan markaasi ku soo dhamaaday natiijo la'aan kaasi oo ka dhacay Villa Soomaaliya. kulanka ayaa waxa la sheegay in uu dalbaday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana uu yeeray Cabdi Xaashi oo markaasi kamid ah dadka ugu sareeya ee dalka. Cabdi Xaashi ayaa lagala hadlay sida loo dhigayo golaha wasiirada cusub iyo sidoo kale waxa markaasi ka galay amaba ka quseeya Cabdi Xaashi magacaabista wasiirada. Cabdi Xaashi ayaa markaasi soo bandhigay qodobo dhowr ah iyo sidoo kale doodo xoog leh oo uu watay oo ku saabsanaa isaga markaasi kaalin weyn uu ku yeesho magacaabista golaha wasiirada. Cabdi Xaashi ayaa qabsaday ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka waxa uuna tilmaamay in isagu uu keensan doono qofka loo magacaabayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka. balse arrintaas ayaa dood xoog la dhalisay iyada oo kulanka markaasi uu gaaray meel xasaasi ah. waxba iskuma aysan reeban labada dhinac waa madaxweyne Xasan Sheekh iyo waliba sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse. waxaana wararkii ugu dambeeyay ee laga helay doodaas iyo sidoo kale isqabqabsigaas ay sheegayaan in markaasi dhinacyadu ay ku kala tageen iyagoo aanan waxba isla meel dhigeen isla markaana natiijo aysan ka soo bixin kulankaasi. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markaasi doonaya in Cabdi Xaashi uu ku qanciyo in markaasi la siiyo hal wasiir, balse Cabdi Xaashi ayaa dalbaday in uu helo ra'iisul wasaare ku-xigeenka isla markaana isaga uu keensado. waxaana arrintan ay keentay in markaasi kulanku uu noqdo mid markaasi ajenda ama markaasi natiijo la'aan soo dhamaada. Cabdi Xaashi ayaa wacad ku maray haddii markaasi sidaan looga gudbo oo aanan markaasi la tashi lagala gelin ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka qofka loo magacaabayo in si weyn uu mucaaradi doono dowladda markaasi dhexe ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waxaana arrintaasi ay markaasi keentay in fadeexad ay noqoto isla markaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xilligan door bido in uu xaliyo amaba uu qanciyo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdilaahi. Cabdi Xaashi oo markaasi ay ka muuqatay cara xoog leh ayaa sheegay in markaasi uusan u dulqaadan karin waxyaabaha qaar sidoo kalena haddii dowladdu ay markaasi isku daydo in ay hareer marto in isaguna uu markaa qaadi doono tallaabooyin cadcad oo muuqda oo uu markaasi wax kaga bedelayo dowladda. si kastaba dood xoog leh ayaa weli ka taagan magacaabista golaha wasiirada ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyada oo hadba ay soo baxayaan culaysyo waaweyn oo markaasi ku saabsan sidii loo magacaabi lahaa xukuumad dalka ka bixisa xaaladan adag.
waxaana markaasi la filayaa in saacadaha soo socda xukuumadda cusub lagu dhawaaqi doono oo ay markaasi wasiiro cusub imaan doonaan iyada oo sidoo kale shakhsiyaad caan ahna ay ka soo muuqan doonaan liiskaasi. hagaag wararkeena ayaad la socotaan qaybaha kale haddii aynu sii fiirino ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa ole xoog leh waxa uu ka wadaa magaalooyinka Nairobi iyo sidoo kale Puntland markaa Soomaaliya iyo Kenya ka kala tirsan. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo isagu markaasi si weyn uga soo horjeeda siyaasadda hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa la sheegay in uu magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya ku shirinayo siyaasiyiin fara badan oo ka soo jeeda deegaanada Puntland. waxa uu doonayaa Cumar Cabdirashiid in markaasi xilka laga tuuro hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. wararka aynu helayno oo kuwa xoogan ayaa sheegaya in Cumar Cabdirashiid iyo siyaasiyiin kale oo reer Puntland ay diyaariyeen lacago malaayiin dollar oo markaasi lagu hirqiyo xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka Puntland si markaasi ay xilka uga tuuraan Saciid Cabdullaahi Dani. xildhibaanadan ayaa la filayaa qaarkood in si dhuumaaleysi ay ku yimaadaan dalkaasi Kenya sidoo kalena ay iyagu wakiil ka noqdaan xubnaha kale ee markaa ku sugan deegaanada Puntland iyaga oo halkaasi ka qaadaya lacago fara badan isla markaana u geynaya saaxiibadooda kale si markaasi si wadajir ah looga shaqeeyo sidii mooshinkaasi u noqon lahaa mid markaasi dhaqan gala. si kastaba haatee Saciid Dani hogaamiyaha maamulka Puntland ayaa hadda wajahaya xaalad adag oo ku saabsan dhinaca siyaasadda iyo in uu markaasi sii joogi karo xafiiska maamulkaasi. siyaasiyiin badan ayaa ku kacsan sidoo kale dadka shacabka ah iyo qaybo ka mid ah ee gobolada maamulka Puntland ayaa looga kacsan yahay Saciid Cabdullaahi Dani. Dani ayaa hadda waxa uu doonayaa in uu markaasi isagu la soo baxo siyaasad ku dhisan in uu isdhiibo isla markaana uu muujiyo tadaawuc iyo in markaa wax lala qaybsan karo maadaama awoodii uu isbidayay markaasi ay meesha ka baxday kadib markii PSF ay meel uusan filaynin ay uga soo baxeen. xaaladda guud ee Puntland ayaa waxay tahay mid markaasi iska kacsan marka la fiiriyo sida ay ciidamadu isaga soo horjeedaan waxaana boosaaso ku sugan ciidamo markaasi iska soo horjeeda oo maamulka ka wada tirsan. ugu dambeyntiina Xasan Cali Kheyre iyo Farmaajo oo dalka madax ka soo noqday ayaa waxa ay wadaan ole ku saabsan sidii golaha wasiirada ay saameen badan markaasi ugu yeelan lahaayeen. wasiirro badan ayaa la sheegay in ay ku yeelan karaan Farmaajo iyo Xasan Cali Kheyre xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse. waxaa jira warar sheegaya in ay markaasi heshiis uu dhex maray Xasan Cali Kheyre ra'iisul wasaarihii hore ee dalka madaxweynihii hore Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha hadda xafiiska jooga ee Xamse Cabdi Barre isla markaana ay ka wada hadleen xubnaha golaha wasiirada. waxaa la tilmaamay in Xasan Kheyre iyo Farmaajo ay wataan xubno markaasi iyaga aad ugu dhow isla markaana kala soo shaqeeyay arrimihii ololaha doorashooyinka iyo sidoo kale saaxiibo kale oo aad ugu dhow oo ay doonayaan inay markaasi saaraan tareenka Xasan Sheekh Maxamuud gaar ahaan xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. waxaana sidoo kale shaaca laga qaaday in markaasi Xamse uu isagu doonayo in arrimo lama filaan ay ku noqon kara madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu markaasi ku kaco. golaha wasiirada ayaana la filayaa dhawaan in markaasi la shaaciyo. guud ahaan intaas ayuu ku dhan yahay warkeeni tan iyo warkaan la mid intaanu dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.